السلام عليكم. waxaan maanta barnaamijkeena ku soo qaadanaynaa kumuu ahaa shaqsigii ugu hodansanaa ee taariikhda aadamaha soo maray inta la ogyahay. Jeff Bezos, Bill Gates iyo Warren Buffett ayaynu u aqoonsanahay saddexda shaqsi ee caalamka ugu hodansan waqti xaadirkan la joogo. balse markaynu taariikhda dib u raacno waxay xusaysaa in uu jiray nin loo aqoonsan yahay ilaa waqtigan aadamihii ugu hodansanaa ee abid caalamka soo mara, kaasoo xukumayay boqortooyo dhacda galbeedka Afrika. Mansa Musa ama Sultan Mamusihi koowaad waxa uu ahaa boqor xukumayay boqortooyadii Mali, taas oo jirtay intii u dhaxaysay qarnigii 13aad ilaa bilowgii qarnigii 15aad. boqortooyadu waxa ay ka talinaysay dhulka Mali, Senegal, koonfur Mauritania, waqooyiga Burkina Faso, galbeedka Niger, Guinea Bissau, xeebta Foolmaroodiga iyo waqooyiga Ghana. boqor Mansa waxa uu talada la wareegay isagoo oo jira 32 sano. taariikhdu markay ahayd 1312 xilligaas oo ay boqortooyadu ahayd xilligeedii ugu xoogganaa ayna aad u baahisay ka ganacsiga dahabka iyo cusbada. wax soo saarka boqortooyadu waxa uu gaari jiray ilaa iyo Yurub. boqor Mansa Musa waxa uu aad u tabcay hanti aad u fara badan oo dahabku kow ka yahay. waxa uu ahaa hogaamiye aad u danayn jiray in diinta Islaamka ay ku baahdo dunida, xilligiisina uu aad uga qayb qaatay. waxaana la xusaa in uu hanti fara badan ku bixiyay fidinta diinta Islaamka. taariikhyahanadu waxa ay sheegaan in boqor Musa uu xajiyay intii u dhaxaysay 1324 ilaa 1325. safarkiisii xajka waa mid ilaa maantadan ay taariikhdu xusto. waxa uu jiray masaafo ka badan 4000 oo mayl oo uu ku gaaray Maka. safarkiisa waxaa qayb ka ahaa in ka badan 60,000 oo ciidamadiisa ah, kuwaasoo huwanaa dhar xariir iyo dahab ah oo qaabkooduna u samaysnaa sida Beershiyaanka. waxaa kale oo safarkiisa ku weheliyay 12,000 oo adoon ah, kuwaasoo mid kasta oo iyaga ka mid ah uu xambaarsanaa dahab iyo dhar xariir ah oo culayskoodu dhammaa 1.8 kilogram. waxaa kale oo qayb ka ahaa fardo aad u badan oo hanti badanna xambaarsanaa. sidoo kale waxaa qayb ka ahaa in ka badan 80 awr ah, kuwaasoo mid waliba oo iyaga ka mid ah uu xambaarsanaa 130 kilogram oo dahab ah. hantidaasoo dhammi waxa uu bixinayay intii uu jidka marayay, isagoo siinayay dadka fuqarada ah iyo muslimiinta kale. waxa ay taariikhyahanadu xusaan in Mansa Musa intii uu safarka xajka ku jiray oo maalin waliba oo Jimco ah masjid dhisay, goob waliba uu sii maro. waxaana ka mid ah meelaha uu maray Qaahira, Madiina ilaa uu ka gaaray Maka. boqor Mansa Musa waxa uu ka soo laabtay xajka isagoo la soo noqday culimo iyo aqoon-yahano muslimiin ah oo muhiim u ahaa boqortooyadiisa, iyo sidoo kale farshaxanno iyo waxyaabo aad qaali u ah ayuu kala soo laabtay bariga dhexe. duuduub ahaan hantidiisa waxaa lagu qiyaasaa inay dhammayd 400 oo bilyan oo dollar oo maantay ah. waxaana ay taariikhdu tibaaxdaa in uu ahaa shaqsigii ugu taajirsanaa ee taariikhda aadamaha soo maray inta la ogyahay. boqor Mansa Musa 25 sano ayuu xukumayay boqortooyadii Mali. waxa uu geeriyooday sanadkii 1337 wuxuuna jiray 57 sano waqtigaas. taladan waxaa la wareegay wiilkiisii Magan Musa. intaas waxaynu ku soo koobnay taariikhdii boqor Mamusihi koowaad ama Mansa Musa oo ilaa waqti xaadirkan loo aqoonsan yahay inuu ahaa shaqsigii ugu taajirsanaa ee dunida soo mara. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar, haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe si aad ula